Mukhtaar Maxamuud Xasan waa arday dhigta dugsiga sare ee Nuuraddiin. Marka uu ka soo rawaxo dugsiga waxa uu si maalinle ah uga hawlgalaa wadooyinka ugu mashquulka badan ee ay ku kulmaan gaadiidku. Mukhtaar oo aan ku soo booqday dugsiga sare ee Nuuraddiin waxa uu hadda sii wataa waxbarashadiisa, balse marka laga rawaxo dugsiga waxa uu bilaabaa shaqadiisii maalinlaha ahayd. magacaygu waxa weeyaan Mukhtaar Maxamuud Xasan waxaan ahay arday dhigta iskuulka Nuuraddiin Boys Secondary School waxaan ahay form 3 waxaan marka uu iskuulka uu ka baxo ka qayb qaata ama iskiis ku xilqaama oo wadooyin kamida wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda oo ka gudbo saxmadda ka jirta awgeed ayaan ka ahay ama aan gawaadhida aan kala hagaa oo inta saxmadda ayaan ka talaabayo aan yara kala hagaajiya taasi oo saxmadda aan yareeyo caqabadaha badan ayaan igu dhaliyay inaan saxmaddan ama ujeedkan aan shaqadan u qabto waxaana kamid ah marka aan wadada inaan ka talaabi kari waayo saxmadda jirta awgeed qodobada kale ee igu dhiirigeliya inaan hawshan qabto waxa kamid ah in markaan talaabi kari waayo sidoo kale markay meeshu ay saxmaddu soo gaadho in gawaadhida qaar kamid ah ay fast gareeyaan oo haadadka xidhaan taasi ayaa igu dhiirigelisay inaan shaqadan qabto maadaama aan ahay qof muwaadin ah oo dalka u dhashay taasi sidoo kale waxa igu dhiirigeliyay ama ujeedkan u qabtay ayaa ah dadka badankooda ama dadka Soomaalidu waxay xilka ama hawsha qabtaan marka loo magacaabo ama lacag lagu siinayo laakiin si aanu taas aanu ka duwan ama ka duulaya ayaan iskays ku xilqaamay oo go'aansaday inaan aniga oo aan dawladda u shaqeynayn oo aan lacag liigu siinayn inaan maadaama muwaadin ahay dalka u dhashay inaan ka qayb qaato hawshan oo aan iskays ku xilqaamo maadaama aan ahay arday aanan xirfadan aan baran waxaan go'aansaday in meelo kamid ah iskiisada ay ciidanku joogaan inaan waqtiyada aan chance kaayo aan ka qayb galo oo aan soo yar daawado si ay u maamulayaan kadibna aan ugu debaro hawshan aan u hayo caqabadaha aan la kulmay waxa kamid ah in waqtiyada qaar gawaarida qaar ay dhaqaaq waayaan aniga ugu mashquulaan ama kuwa kamid ah marka joog ku raado ay fast gareeyaan oo aanay amarkayga maqal laakiin se taasi waxa ka badatay inta dhiirigelinta ama inta maqalka maadaama ay positive dadku ay badan yihiin ayay igu dhiirigelisay dadka wadooyinka marayana in badan gurjab ay igu raadaan ay dhiirigeliyaan taas ayaa igu sababtay inaan hawsha sii wado aan ka caajisin muddada aan shaqada waday waxa weeyaan imika muddo 7 maanta oo ay sabti tahay taariikhdu tahay bisha 9 ayaa noqonaya 7kii labaad uu bilaabmaya Macallin Yuusuf Cali Caydiid oo kamid ah macallimiinta waxbarta ardayda uu kamid ka yahay Mukhtaar ayaan weydiiyay sida uu ku yahay waxbarashada dugsiga maxay dhiirigelinta leh ee uu wax weyn isagu istiray ee uu wax weyn maxay isagu qof isagu istiray iyadoon cidina u dirin mushaharna lagu siinaynin oo wax weyn maxay isagu istiray sida daraadada ardada kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa sida Mukhtaar oo kale ay wax weeyaan maxay hawlaha maxay bulshadu ay u baahan tahay sida traffic ee ardada gawaadhida la kala hagayo kale ardaygaasi wax weyn isagoo istiray isagoo maanta oo dhan wax dhiganaya haddana uu wax weeyaan maxay inta wadada istaagay gawaadhidu kala dirayo waa arrin ku dhiirasho mudan waa arrin ku dayasho mudan waa arrin u baahan in la amaano in la dhiirigeliyo waxaan leenahay wax weeyaan dawladdan waxaan leenahay ardayga isagoo istiray wax weeyaan bal arrinkiisa hal la eego hal la dhiirigeliyo si ay ardada kale ugu dadaan Mukhtaar ayaa shaqadan u isticmaala adeegsiga siidhiga ama frimbiga si uu ugu kala hago gaadiidka. Cabdiraxmaan Nordogan telefishinka Nabad TV Hargeysa.